runtii Sheekh Mustafa aqoonta ku jirto waxaan aaminsanahay ummadda Soomaalida inaysan si fiican uga faa'iideysanin waxaan dhahaa waa maskax caalami ah laakiin luqad loo kala ku hadasho haddii uu af Carabi ku hadli lahaa ama Ingiriis ay noqon lahaayeen duruustiisa ama Carabi noqon lahaayeen runtii aanan ku dardaraynin Sheekh Mustafa wuxuu la mustawa noqon karay culimada waaweyn ee caalamka islaami fikradaha ee ku soo kordhiyay Maxamed Qutbi iyo Abu La'la al-Mawdudi iyo laakiin maskax caalami ah waxaan barsan yahay laakiin luqadii baa waxay noqotay luqad local ah laakiin fikirka nolosha iyo siyaasadda iyo fahamka iyo falsafada iyo afkaaraha nolosha meesha ay ka socoto qofkan aad iyo aad wax badan ka qaatay markii dambana aqoon shakhsiya iyo saaxiibtinimo aan isku yeelanay waa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil runtii muddo dheer muddo hadda 20 sano ka hor aad ugu mashquulay inuu fikir xoog ka saaro wuxuuna ka mid ahaa culimadii runtii afkaarteeda ku yeelatay saameynta ugu weyn ku yeelatay ilaa markii dambana aan ka saaxiibnay laga yaabaa inay habboon tahay inaan sheego siyaasadda markaan soo aadayay waan kala tirtay wuxuu igu yidhi ha aadin iska dhaaf waxbaa aadin faraha ka qaad wixii aad danahaaga qabsan kartay ummadda wixii aad u qaban karto u qabo inaa xoogaa ku yara mamanahay buu arkay oo aanan ka haraynin marka hadal markii siyaasadda aan dhex galay aan arkay inay runtiis tahay baan ku dhex arkay wuxuu igu yidhi nin siyaasadda Soomaaliya iska dhaaf haddaad gelaysa laakiin mar baan kuu sheegay markaas markay gaarto sug waa markay baan ku iri wuxuu yiri waxa la ciyaaraa bahal la yiraahdo chess arabiga shatranji waa lagu dhahaa shaxdeena u dhowda marka waa ciyaarta ay dhahan ciyaarta boqorada maskax baa lagu dheelaa oo marka la ciyaarayo marka ciyaar kale waxa jirta la dhaho laadhuugu marka dee waa saan baa dhihi wixii kaaga soo bax badankiisa marka wuxuu yiri siyaasadda Soomaalida waa laadhuuye intay chess ka noqonaysa iska sug marka adu sheekhi warkiisa ma yeelinay waa waxan baa iska dadabaasha laakiin runtii saameyn weyn buu igu lahaa ma asaga maadaama siyaasadda iyo faham badan oo haysto muxuu inuu wax ku biiriyo xatee ama talooyin oo siiyo muxuu kugu diidanay asaga culimo marka la fiiriyo gaar uma aha xataa siyaasadda waa fahamtay markuu khudbayna marka aragtid waxaan u maleynayaa inuu dad badan baa saas ku yiri oo anagaaba ku niri ma adiga laftigaaga soo gashay laakiin ma jeclaa wuxuu aaminsan yahay bulshada in qiimaha ay ku jirto in bulshada la dhiso aqoontooda la dhiso fahamkooda la dhiso noloshooda la dhiso runtii Sheekh Mustafa aqoonta ku jirto waxaan aaminsanahay ummadda Soomaalida inaysan si fiican uga faa'iideysanin waxaan dhahaa waa maskax caalami ah laakiin luqad loo kala ku hadasho haddii uu af Carabi ku hadli lahaa ama Ingiriis ay noqon lahaayeen duruustiisa ama Carabi noqon lahaayeen runtii aanan ku dardaraynin Sheekh Mustafa wuxuu la mustawa noqon karay culimada waaweyn ee caalamka islaami fikradaha ku soo kordhiyay Maxamed Qutbi iyo Abu La'la al-Mawdudi iyo laakiin maskax caalami ah waxaan barsan yahay laakiin luqadii baa waxay noqotay luqad local ah laakiin 20 sano u dambeysay wuxuu yiri iska dhaafay dadka qaal Allah Taala iyo qaal Rasuulullah in baa u sheegay warka tirada badnaa uma sheegayo waxaan u malaysaa booskii oo fikirka iyo falsafada iyo nolosha iyo diinta 20 sano 30 sano ka hor oo Sheekh Mustafa xoog ku lahaa hadda waxa ku jira Sheekh Abdulrahman Sheekh Bashir oo Mareykanka degan oo noloshiina akhriya diintiina akhriya fahamkii siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo noloshana aad u akhriya runtii asaguna door weyn buu buuxinaya inkastoo weli aan qabo mid Sheekh Mustafa aan ka qabayo asaguna luqad loo kala ku hadlaya asagoo fikirkiisu oo fikir islaami caalami oo yahay marka culimadaas culimo runtii jiil is dhaxlayo oo soo bedelaya